xariifkan caata ayaa xusoo bursana dadkan weliba wuxuu soo baxsay xabsigooda balse jirkiisa markuu uu gaar biyaha ninkan sidoo noqon kara digana daawada ha ilaabin muuqaalka in like inoo saarto mar oo kaliya markuu taabto jirkiisa samarkii buu isbedelay wuxuuna yeelanaa marqooyin aad waaweyn ninkiina markaasiba waxay bilaabeen isaga ka baqan sababtoo iska celin kara ninkan ayaa ku jiri xabsigan waa lagu gumaysan jiray biyo caadi lama siin jiray raashin sidoo kale lama siin jiray cuntooyinkii biyaha la siina waa loo soo daadin jiray oo kaliya sidoo kale koronto lagu qaban jiray waan la garaac jiray ninkan waa boqorka labaad ee wadankooda laakiin si nasiib wanaag kalmar waxa uu imaanaya walaalkiisa asiga ay badbaadinaya waliban ayaga qofna aan arkin wanaag walaalkiisa meesha markuu yimaado ninkan wuxuu yeelanayaa rajo laakiin isaga ma arkayo in walaalkiisa meeshaas joogo wuxuu dareemayaa badbaadintan kaliya inuu isaga oo kaliya u yahay oo badbaadinaya walaalkiisa isaga walaalkii bay soo baxsanayaan waxayna soo aadaan dhanka magaalada waa suldaanka wadankooda caata ayuu noqday sidoo kale raashin lama siin jirin biyo lama siin jirin waan la garaac jiray wuxuu awood u leeyahay dadku idilba inuu iska qarin xayawaanadan ay dash garaacayaan si ay magaalada u soo aadaan una soo baxsadaan daawada ha ilaabin muuqaalka in like inoo saarto meeshaas waxa ka dhacday dagaal aad u xoogan kadibna ay soo baxsanaan oo waxay soo aadaan dhankii xariifka isigii walaalkii baatay soo carray waxaan soo bursanay xayawaanaad u fara badan sakani markuu soo gaari biyana ay dhulka ku dhacaya waliban isagoo aan ahayn wax tabar ah bal suuraysininkan muxuu sameyn doonaa si banaag kalmar oo kaliya waxa soo gaaray biyaha xeebta kadibna wuxuu yeelanayaa awood taasi ah isaga inuu awood ku leeyahay kaliya biyaha uu yahay hal mar oo kaliya duu jirkiisa taabto biyo ninkan wuxuu yeelanayaa awood aad u xoog badan maantoodana meeshaas ayuu ku garaacaya walibana isagoo aan kareebin mid qudha kaasi ay haddana waxa loo soo diraa bahalooyin aad u fara badan si loo dilo isaga iyo walaalkiisa ilaa ugu dambeyn ay meesha ka soo carran kana soo baxsadaan bahaladaasi